أنا قلت درين كيجا وإحنا نسلها موسى أنت هذه وادلا صو شقي سيو يسوق كل شقين معي وأنا آمسنا معرفة أن يسول إني أوجيه يهب دقن كيسة لكن وإحنا نسلها نك أقول يدك حنت كوجو تورتورا يدك حقول يا كوجو سطورا يا نقول إن مدحوينه حالته واحد لين وحنا نصيب درعة هذا الذي وجدي وحكم ده لبدا قدومية arrimaha ay wadaan ha joojiyaan shirarka ay wadaan ha joojiyaan labada gudoomiye madaxweynuhu sheegaya tamid waa aniga ka kalena goortu gudoomiye aniga ila siman noqday iyo xeerka inta kulmiye uu ku noqday ee madaxweyne Muuse uu ka warhayo iyo haduu gudoomiyaha xisbigan ahaan jiray marka uu kulmiye lahaan jiray laba gudoomiye deemay dhici jireen goorta ay labada gudoomiye ee uu isagu aqoonsaday oo kulmiye yeeshay isaga sheegi doona waxay se taasi ka marxaati furaysaa muddo hadii ay socotay oo meel loo dhaqaajiyay la garan waayay malaha markii Maxamuud Jaamac uu iyaga ku biiray ayaa wuxuu noqday nin nimiri u soo caariyay dabadeedna kaasaa loo soo fuulay sharciyada xisbiga kulmiye mid la soo fuuli karanayaana ma ay aha laakiin waxa ay cadeynaysaa inuu isagu Muuse laftiisu doonayay inuu xisbiga kulmiye laba garab noqdo xisbiga uu doonayay inuu labada garab ka noqdo waa kii uu madaxweynaha ku soo noqday xisbiga uu doonayay inuu labada garab ka noqdo waa kii uu isagu gudoomiyaha ka soo noqday ninka imika jooga ee gudoomiyaha ka ahi waa anigo Maxamed Kaahina president hore ayuu xisbigu leeyahay taariikh nololeed hore uu leeyahay nin kastoo xisbigan soo joogay wuxuu ku soo joogay ayuu leeyahay aniga isagoo gudoomiyena wuu iiga horeeyay أحمد محمد سيلان يحسبين أساسين ويجي هريي أنا وين أنا مك معارض يشري مدي دني ساني قابل معارض هانشري هساهاته سيلان معارض وأكون نقطة من مسبحين معارض واللجون نقطة واللجون سوحك حقته حسبين كل مين نك أقول يا أنكو سوحك حقن بنانا وأخي نكون ما أنت مسحك حقنا يا أنا وأنيك أنا قلت درين كيجا وإحنا نسلها موسى أنت هذه وادلا صو شقي سيو يسوق كل شقين معي وأنا آمسنا معرفة أن يسول إني أوجيه يهب دقن كيسة لكن وإحنا نسلها نك أقول يدك حنت كوجو تورتورا يدك حقول يا كوجو سطورا يا نقول إنن لكن يمكن إحنا نقدر نك يدك حقول صور يا كوجو سطورا يا أنا ونادك حنت اللي كوجو سطورا يا وأنا أقولها يا ماشي وحنوي من السياسة سياستنا أركتي كلا دوان بيلادا خيا أركتيها كلا دوان نوان سود دوينين أرنت الحس بجا هدي عن صوت شجع هبدأ كيس هراء نصيدا أها قولها النوح ما أنت كعدينا يا كوح دا جوري جموسا كشرتا سببها عن عسكري إن الكوح قدوميه هراء حل كنا كقاعدة حين دابك حس بجانا كسعرة وحكمدا حسبيقو مقع قلول ليه وكلمية حسبيقو حرون قلول ليه او قرن وحرون تدهي حسبيقا واتينو امك تشوغنا حرون تلمادو ليه وحرون تقبرلدا حرون تسدحادو ليه وحرون تدقموينكا حرون تكاليو ليه وحوية لامها دبدا دلالك الدبدا انك نول dadka kulmiye taageera ama kulmiye ka tirsan xarumaha ay leeyihiin sida la ajligeed go'aamadii ka soo baxay ee doorata loo gudbiyay warqadii ay soo diideen ee soo celiyeen guddiga xusbiyada iyo maxaan ku dhaahday ururada go'aamadii hore ee wadku Maxamuud soo saaray ee uu yiri ana dadka oo dhan shirinaya hadii shirkaasi dawladdu taabatana wax adag baa dhici doona waxa aan qabaa anigu inaan ahayn wax isaga ka soo baxay waxa weeye wax ka soo baxay guriga Muuse
xaruntan aynu imika ka hadlayna inta go-aanka ka soo baxaa xaruntan uu noqday haddii uu xarunta muuse ka soo baxayna xarunta xisbiga mahe waa gurigii muuse bixi madax xisbiga uu ka ahaan jiray madaxweynena uu ahaan jiray laakiin maanta dalku laba madaxweyne ma leh kulmiyana laba guddoomiye ma leh xeerkiisuna guddoomiye qurun ayuu maxaanku dhahday ayuu leeyahay arrimahaasi marka ay jiraan gabagabada waxaan gabagaba uga dhigayaa waa kow marka ugu horeysa xusbiga waa xusbi kaliya oo la yidhaahdo xusbiga midnimada iyo horumarinta ee xusbiga kulmiye hoggaan qura buu leeyahay oo anigu aan guddoomiye ka ahay guddi fulineedoo qura buu leeyahay xarun qura buu leeyahay waxay la tahay deelqaaf waxa ugu filan ama milgala-aan ugu filan in maanta golaha lagu kala qaybinayo xusbiga kulmiye guriga lagu kala shirinayo halka labada guddoomiye ka soo baxayaan in ay noqoto gurigii guddoomiyihii hore ee xusbiga kulmiyena madaxweyne u doortay xusbiga kulmiye ilaa iyo intii 2005 doorashadii ugu horeysay waxaan leeyahay 2002 doorashadii ugu horeysay golayaasha deegaanka tii ku xigtay golaha wakiilada doorashooyinkii ka dambeeyay madaxweynayaasha iyo golayaasha wakiilada xusbiga kulmiye mar walba wuxuu ahaa xusbi qura oo cod qura wada leh oo cod qura kulmiye wada siiya waxaan aad uga xumahay muuse isagoo xusbiga laga doortay inuu maanta u kala saaro dadkii kulmiye u codeeyey iyo dadkii meelay u codeeyeen aan la garanaynin oo isagu dadkii kulmiye u codeeyey uu laba ka dhigay waxaan leeyahay markaa oo ku baaqayaa dadkii kulmiye mar walba waxa u codeynaysaan kulmiye mar walba waxa u dooranaysaan madaxweyne mar walba waxaad dooranaysaan golo baarlamaan mar walba waxaa idinkoo midaysan dooranaysaan golayaal degaan waxaan idinkula talinayaa maantana idinku baaqayaa kulmiyihiinii ahaada anigu idinkala saari maayo idin odhan maayo dadkii xusbigan codkiisa lahaa cid waliba codkiisii way lahayd halka ugu galbeedaysa iyo halka ugu bariyeysa midnimadan xusbigeenu dhammaanteen wada ilaalinaynaa waxaan kaga baxayaa kulmiyenu nahay aad iyo aad